dhammaan asxaabteena qaaliga Ramadaan Kariim meel boo joogtaan waxaan ku jirnaa barnaamijkii kobci garaadkaaga oo aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan waxaan maraynaa qaybtii saddexaad maantana waxaan ku soo qaadanaynaa 3 su'aalood iyo jawaabahooda kuwaas oo ruuxaantii aad iyo aad u muhiim ah balse inta aan gudagelin su'aalaha iyo jawaabahooda waxaan codsanayaa inaad la shargareyso asxaabtaada isla markaana aad like noo saarto si uu gaaro asxaab badan adigana ajra uga hesho رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان su-aasha koowaad waxay leedahay sheeg magac ka mid a magacyada ragga oo haddii gadaal loo akhriyo ah wax dadku jecel yihiin su-aasha labaad waxay leedahay sheeg xayawaanka aan carabkiisa dhaqaajin karin ama si aan waxba ku calaali karin su-aasha saddexaad waxay leedahay sheeg xayawaanka qura oo noolaan kara 4 asbuuc madax la'aan haddaba dhegayste tijaabi aqoontaada inta aan ka jawaabin su'aalaha كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 haddaba waa kuwaan jawaabihii oo dhammaystiran su-aashii koowaad oo dhahaysay sheeg magac ka mid a magacyada ragga oo haddii gadaal loo akhriyo ah waxa dadku jecel yihiin jawaabtiisu waa gacal magacu waa gacal haddii gadaal loo akhriyana waa lacag su-aasha labaad oo dhahaysay sheeg xayawaanka aan carabkiisa dhaqaajin karin isla markaana aan waxba ku calaali karin waa yaxaaska su-aasha saddexaad oo dhahaysay sheeg xayawaanka qura oo noolaan kara 4 asbuuc madax la'aanna waa baranbarada waxaan filaa inaan wax badan ka faa'iiday asxaabtaadana aad u faa'iiday doonto haddii aad ka heshay fiidiyogan fadlan la sheergaray asxaabtaada layna noo saar tan iyo kulanka xiga barnaamijkeena kobci garaadkaaga halkaa haynoo joogo قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم